بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan maanta nimid isbitaalka Soomaali Sudanes aniga iyo wasiiru dawlaha wasaaradda gaashaandhigga si aan ujeedkeena laba qayb ayuu ku wajahnaa. qaybta koowaad waxay ahayd inaan dhiiga shubno taasoo ah waajib qaran dadka soo dhaawacmay oo aafadii shalay dhacday anoo ilaahay uga baryayo shuhadadii ku shahiidayna inuu ilaahay jannadii firdaws ka waraabiyo inta dhaawacantayna ilaahay u naxariisto ilaahay caafimaad degdeg ah siiyo dhiigii inaan shubnayn halkan u nimid alxamdulilah waa inoo dhammaatay. waxaan aragnaa dad fara badan oo shacab ah oo runtii si free ah dhiigooda waxa halkan u bixinayo. waxaan aragnaa shaqaalo heegan ah diyaar u ah in tiradaas faraha badan ee u yimid inay dhiigooda sadaqaystaan walaalahoodan ku garab istaagaan oo ay weliba shacab iyo ciidan ay isugu jiraan in shaqaalahaasi ay runtii ka fargareynayaan ayagoo shalay ilaa iyo maanta taagan indhaan saarin. waxaan qaybta labaad tagnay inaan bal soo fiirino xaaladda bukaanada ku sugan isbitaalka qaybihiisa kala duwan. waxaa kaloo halkan ku sugan gabadhii yareed hooyadeedii shalay ku geeriyootay. marka gabadhii runtii waxaan aragnay in caafimaad free ah qol gaar ah la siiyey caafimaad free ahna la siiyey welina la xanaaneynayo ilaa qoyskeeda qaar ka mid ah sidaan soo aragnay ay hadda gacanta ku hayaan. waxaan rabaa inaan halkan baaq kaga jeediyo marna dadka mediaha iyo social mediaha isticmaala marna dad kale jaalka ah ee isbitaalada kale private-ka loo leeyahay. horta dadka mediaha waxaan leeyahay waxaa leedihiin inaad wax baraarujisaan dadka kixisaan abaabushaan si ay kaga qayb qaataan garab istaaga dadka xaaladaha xasaasiyadda leh ku sugan. midaas iyada waa ku mahadsantihiin. dhanka kale haddana waxaan rabnaa inaad waxaad gudbinaysaan noqdaan wax runta ka tarjuma oo aan ahayn wax dhaawacaya dadkii ummadda wax u qaban lahaa. saakay social mediaha waxaa aad runtii u daadsanaa ama lagu faafiyey in Soomaali Sudanes ay ka mid yihiin dadka lacagta ummadda ka qaatay si ay dhiig u shubaan. arrintaasoo totally been ah. wasaaradda caafimaadkana dad bay soo dirtay haddana annaga joogna oo ka warhayna. marka waa rajeynayaa in arrimahaas oo kale laga digtoonaado oo u eg dagaal ganacsi inaanan la niyad jabanin dadka bulshada runtii khidmada u fulinayo. sidoo kale isbitaalada kale ee dalka ee private-ka ah ee howshan howl la mid ah qabtayna waxaan leenahay idinkana waxa aad qabateen waa shacabkiina ajirka cida aad ka sugaysaan wama asalukum calayhi min ajrin in ajra ilaa calaa rabbi alcaalamiin. aad iyo aadaan ugu mahad celinayaa muwaadiniinta Soomaaliyeed meel walba ay joogaan mas-uul iyo shacabba waxaan ugu baaqayaa inay soo garab istaagaan shacabkooda soo buuxiyaan isbitaalada ku garab istaagaan dhiigooda ku garab istaagaan dhaqaalahooda. aad iyo aad ayaan mar kale u mahad celinayaa isbitaalkan Soomaali Sudanes iyo hawsha oo shacabka u hayo. waa mahadsantiin. asalaamu calaykum waraxmatullah.